waqtigii afurada weeye waa salaamaya niman yahow islaameed soomaali maxamedey mushkilad baa inagu soo korodhay la yaab leh oo cajiiba oo aan loo adkaysan karayn mushkiladii inagu soo korodhay waxaa weeye rag iyo dumarkii iyo kabarad shalay waxaan arkay inan iyo ninkeedii laga duubay kuwaas iyaga iska duubay iyagaana iska diray ama ninku ha diro ama ha iska daaye ama arkaysa ninkeedu iyada isagaa diray bay tidhi saan qoraal ku arkayay allahu aclam kolley iyaga midunba ka diray isagaana baktiinayey isagaana gacanta ku hayay dumarka waxaan oran lahaa hadda kadib islaamihii hooyooyinkeena haye islaamihii hore leyrhkay baktiisan jireen bal leyrhka inoo baktiya talaqaboy iyo hadda kadib aamin ma jiree ilaa haddan eryina kari maynee leyrhka baktiya leyrhka habeenkii leyrhka ha laysu baktiisto dam gudcur waxaa ku laq dadna ka seexo waayo wax kale ma jiraan gurigaagana xijaabkaaga salaada ku joog oo lama hadal kalaa jiradi waa in saasuu maynu ku badbaadaynaa waa dumarka la qabo laan leyrhkii iyo wacdi iyo big wacdi wixii laynoo dacare raggu iyagaanba ogolayn dee waa adiga arka cajiradayna ka qabanayaan taasi waa taa tan kale ee tusmo niman yahow arrinta haddaan isada ka garnaq oo aan isada garnaq gal horta waa arrin murugsan waana arrin la yaaba waana arrin aan ka fajacay waana arrin igu noqotay la yaab sababta la yaab igu noqotay waxay tahay gabadha cajeedada hore markaad dhegaysatid somehow ninka way ka cabanaysaa somehow-na waxay waa beri hadda cajeed video waan ku arkayo iyagoo baashaalayo sheekeynayo uu sii wado gurigii doonaysa ku socota waan arkayay hadalkeeda anigu horta maakan saaka horta cajeedda xalay arkay waan qaracmay ilaah baa ila dilaya waan qaracmay naftuba waana iga bixin waxaan na aaminayba inantaas inay dhimatay ayaan aaminay inantaa waa la dilay way dhimatay baanba aaminayba markaan saaka hadalkiisii dhegaystayna wuxuu igu yidhi waa kii lahaa dee filmaan dhowr cajeedood bay haysaa marka horta ilaahay qaadir raxmaanka ah ayaa og waxa dhexdooda ku jira hal arrin baa laakiin dadkaa seegtay horta odayadan anigu mid baan usoo jeedinaya odayadan inanka sayidkiisa mid baa seegtay inanta turkood markay wadaan soo war gabadhan maaha soo gabadhan annaga nabadul ha soo ninkan uma iman ha waa noo meherinaynaa inay yidhahdaan bay ahayd isagana yidhahdaan mahba hadli kartid dee maxaad ku hadli gabadhan aday kuu timi soo maaha ha adaa u yeedhay soo maaha saaxiibba ahaydeen soo maaha ilaa adaa shiiriye waa sheekaysanayn soo maaha ha waa khasabad ku mehersanaysa wallahi dilkaa ku tooganayna intay doonaanba hays qabaan horta reerka intaasaa seegtay inay ku meeraystaan meherkii keena iyo waxaa keena iyo waxaas may ahayn sharafteenaba ma aha haddeerna waxaan idin leeyahay ilmo sheekh isxaaqo xaal bixiya inantaasi cajideeda ama ha duubato ama iyadu ha u jeedo ama waxa u jeedo horta meesha gabadhaas arrinteeda markaan eegay saaka filinkii daawaday waa meesha ay fadhiyaan waa kaabad guri inantu way libisantaha waxayna iska dhigaysaa sidii qof aan meesha ogeyma markuu yimi maryaad fallayd waxbay cabsanayd ma garanayo markaa sababtay meesha ku timi maba garanayo waa meel hawda waana magaalo dhexdeed maaha meel fog meeshu waa kaabad waxay fadhiyaan waa kaabad guri sides wey seeska guryaa wey qalabkoodina waba ag yaalyaala dahdarad xagga dambe yaalaaba ka taala marka labadaas yood bay noqon kartaa kama garnaqi karo ilaahayna waanu usoo manahayo qole inaan dembiga saaro dooni mayno isagana inaan dulmina dooni maayo ina inaan dulmina dooni mayno laakiin markasta dulmiga iyo dembiga waxaa la saaraya inanka ayaa la saaraya waayo isaga ayaa mas-uul ka aba gabadhaba raggiina idinkaaba mas-uul naga aba idinkaa mas-uul naga ahe dee markaa mas-uulnimada ragga ayuu ku qaatay taana ku qaadanaya gabadhana ninkaa in loo meheriyaa bay ahayd in la yidhaahdo guurso dabeedna mawjidiina meesha doonta iskala dhaca bay ahayd runtii laakiin waxaa leeyahay reer somalilandow waxbaa inaga khaldan waxbaa idin soo dhex galay waxbaa jira anigu ma garanayo wax meesha ka jira mushkilad baa jirtaba aynaan ogeyn marka ilaahay horta waxaanu ka baryaynaa rabbiga weyna waaxidka inuu wixii shar ina dhaafiyo dumarka soomaalida waxaan leeyahay ilmaadareeyaalow idinkiiba isu cadowey rag horta maxay idinku samayn karaa iyagiiba isu cadow inta kabiiradii laysugu dhiibo ayaa iyadiina tii kale kasii diraysaa gabadhi markay gabadh xumaysteeda aad horta waxa la yidhahay markood ceeb asturto 12 ceebood buu ku asturaa kabsaarteed baan baleli tamba tuurtaa way haysay ilaahay 12 ceebood buu ku asturaa baa leeyahay marka hal ceeb asturto
ilaahay 12 ceebad buu ku asturo ilaahay ceebtayada iyo ceebta caarkayaga iyo ceebta waalidiintayada iyo ceebta dadka iyo ehelkayaga ilaahay asturo ceeb qofna laguma degdego qofku hadduu qof ceebti ku degdego wallaahi inaanay ka dhixin sakin inaanay ka dhixin way hortimaadaa si kastaba ha ku hortimaaday marka hablaha laguma dheereeyo hablaha ceebtooda ha ku dheeraynina ragowna ha ku dheeraynina dumarna ha ku dheeraynina ilaahay baa isu keen baneeyey si kastaba aan isku cunno xaaraan aan isku cunno xalaan isku cunno wax ilaahay isu keen baneeyey bayna ilaahay baan idinkana baneeyey de waanu idinka tegiyo way hadda waxaan isku gursanaynaa nimanka cadaanka waxa war alla imankan ajaanib ka qabanna waxaan ajaanib bay qabatay de idinkana kamarad baan loo soo disan yahay naga dhaafa ciyaarta noo waxaan ciyaar ma aha naga dhaafa oo naga dhaafa hablaan waxa leeyahay war gabdho xishooda yaakh war ragga anigu eed basaari maaye dumarkan eed saaraya inta badan dumarkan eed saaraya iyaga isu cadowa iyaga isdilaya iyaga isxamanaya iyaga iscaayaya iyaga mar saaxiibaya de hadda waxa lagu leeyahay gabdhaha hadday ku timaadaan roos u labisanayso sida gabadhii aamin maysa kamarad bay ka qaaday dhac naagta telefoonada naga dhameeya marka waxaan idin leeyahay maadareyaalow gabadha ayaa aniga dambiga ma saari kari waaye cidaan saaro garan waaye waa xali naga weyn xagga samada laga qoray baan taaganay anigu arintani ama waa arin isku dir dad wax kale meesha ma yaaliin waa isku dir dad waayo update bay naga dhigeenba labadii week baa inoo soo update garanayaan waay waxaan waa lagu kala hagaagay wixii qabitaan waa la waayay waxba waa la waayay de kala yaaca mid walba qof walba suuqa gal laakiin reerka sawir xal ka bixiyaan xal inuu bixinaa baan xaq u leenahay inaynu inta xal siinayno xaq u leenahay reerkana xal siino raalina hadalnaa waayo idinkii baa ninkii idinku idin yahay mar walba ninka reerkiisu inuu xal ka bixiyo waxaan leeyahay reerka inaan ka dhashay haddii dee ay iyagu garan waayeen waar dee meesha waa joogtaani qolyihiinan kale ee gudabiirsay iyo qolyihiinan kale ee isaaqow dhex gala sheekadanoo inaga soo afjara gobonimo waa tii la afjaraaye inantu waa inanteennii inankuna waa inankeennii dhibaata ma jirto ilaahay baa caalamul qayba ilaahay baa og waxa meesha ku jira anigu somehow siyaasad baan u arkaa si mararka qaarkood waxaan ba aaminaaba inay tahay siyaasad waxaan oo qolo waxba jiraan waxba aniga la nooriyay waxbaan arkaa kacdoon baa jira marka waxaan idin leeyahay madaxyaalo sheekada hala soo afjaro hala la soo dhameeyo inanta xaal hala siiyo reerkan xaal hala siiyo wixii dhacay way dhaceen hadday ina doonayso anaga reer waa qaar jecel doonayna ma rabaanay ma rabtaa hadday ka yar madow kaga dhigan tahayna day u guuriya dee haddii kale aan meesha waxa kala jirin day inuu kala diro Soomaaliya kala taga dhaha xaalkaana qaata ilaa wax kale meesha ba yaaliin maxay isugu dhigdhigantiin maxaa marba cajeer loo soo saaray umada loo soo dhigaya cajeeraha idinka iska duubay hana waalina wareerina ka fiisan naga dhigana Caashi Cabdi Ciidow idinka weeye waxaan waa qasadiina maxay iskiin daba dhigay dad la isqabinba maxay isku kii wareejay hada maalin inta maxba cabsin jirteen meel ku soo xin jirteen waan ka yaabay maxaa xareeg mareegad ka dhigay maalin walba wada socotaan haddaan ku baddo muxuu ula socdaa isagu muyahana anigu dee ku baddooni ma nabad geliyo muxuu maro meel ku qaaday muxuu sidaa airport ka qaaday yada telefoonka ka tir airport ka isaga ka qaaday geeyay guriga meesha geeyo dhulka urula maxaa ku wareejiyay sida luubaanka sawlayaba xal bixiya nimay islaameed meesha waxa kale ma yaalay anigu gabadhan markii hore waan ka dhaxay waxaan sidii dil caadi ah haddana marka dib u sii raacay isaga sheekadiisii dhageystay way dhici kartaa dumarka laftooda laga masal gaaraa leeyahay dumarka laftooda wariyada la sirda laga masal gaaro marka sheeko kala jirta tolow ilaahay waxaan ka baryaa inuu wax ay naga qaboojiyo oo inaga dhameeyo oo inaga afjaro ayaan ilaahay ka baryaynaa dadka kale ee media ku jirana waxaan leeyahay sida wanaagsan ee xaq ku jiro ha loo hadlo waa sideed ajood markuu yiri waa sideed baa maalin waa masashiraab sideed baan u duubnay buu yiri sideed yaa ka gayoonay waa sideed wiigo kale sugnaa miya hadar marka maalin mid dhac waa kan dhag waa kan mise dad labadooda dhexdooda ku jira oo kabarada gacanta ku dhigay baa jira oo dadka soo update gareynaya horta kabaradahani meesha ka soo baxay waa in la ogaado ma isaga ma iyada ilaahay baa og laakiin ilaahay waxaan ka baryayaa qofka labada qof la qadabadooda wada inuu ilaahay ka ifiyo midna waan idin sheegayaa arrin baa beri dhacday laba arrimood baa beri dhacay halkan Liverpool waxa inaba iga sheekay 2000kii
wuxuu iga sheekeeyey wuxuu inan baa jaamacadooda dhigan jiray buu yidhi haye inantii wuxuu yidhi inankii wuxuu helay inanta inuu ka qabsado jeclaada inantii buu la sheekaysto 6 bilood buu la sheekaysanayay wuxuu waan ku guursanaya waayahay bay ku tiri 6 bilood kadib buu yidhi waayahayoo guurkiibaa maalintii dambe waynu ismaharsananaa guriga igu kaala guriga igu timi guriga markay igu timi buu yidhi waayahay okay waxaan doonayaa inaynu isguursano waa kaa dee caawa waynu baashaalana berri reerkaan la hadlaya way diiday baa layidhi waar maya bay tiri anigu inan baan ahay inannimadeydana ma rabo inaan seego markaa in adeerow dee maya sheekadu ha inoo dhammaato may markaasuu yidhi imaba jeclid waanay doonaynba ilaa ragga waa iska jine dabeedna waxay tiri waaya adigu sheekadii dee wuu ka dhameeyey inantii gurigooda iska qabatay wuu iskala yar sheekaystay maalintii dambe ayaa inantii uur ku soo baxa markii uur ku soo baxay xanuunsatay dhakhtarka tagtay baa loo sheegay way u sheegtay waxay waryahay saasaa dhacday goormaad imanaysaa waa imanaya goormaad imanaysaa waa ka waxay tiri oo la soo hadashay waxay tiri saasaa dhacday wuu balowgareeyay meel kasta marka berigaa wuxuu leeyay guryaha telefoonka ku jireen adigu telefonkii uu ka qaban waayay moobil ma jirin dariiq buu ahaa inantii shaacadda ka raadisay way soo heshay waxay ku tiri maxaad waxaa igu samaynaysaa sodiga saas nahay soo qaadin buu mar dambe magacayganaas ma soo qaadi kartid saas ahaa haddaad soo sheegtidna kawanba kaaga siinaya waayahay bay tiri waxa la yidhi galabtii buu gurigii tegey galabtii ayuu gurigii tegey wuxuu u tegey hooyadii oo ooyeysa markaasuu yidhi maxaa kugu dhacay ee hooya maxaa ku helay inanteennii kii jumaykaanka ayaa saaxiibka ahaa baa garciyey bay ku tiri waata qolaa ku jirta shoog miyaanay ahayn ninkii cadhadii wuu baxsadaa layidhi duway buu galaa carabtuu tegey baa laygu yidhi carabta markuu tegey goor baa ku guursaday inantiisi iyo sanad jirtana waa la kufsada markaasuu wadaad u tegey oo dhibaatada uga sheekeeyey oo yidhi saasaan sameeyey anigana saasay ku dhacday marka waxa weeye qof kastoo kaa dhixi mayso kaana maqnaan mayso walaashaa bay ku socto wallaahi nin kasta iyo bilaahi iyo talahay nin kasta oo gabadh xumaanteed ku degdega wallaahi walaashiis heedhe inaanay dhaafayn iyo ta ehelka ugu dhow naaguhuna waa saas oo kale iyada lafteeda waa saas oo kale iyadaanay dhaafayn iyada lafteeda dhaafi mayso waayo waa xumays marka ilaahayna kala cafiyo afuraan samaysanayaa dee intaa yar baan kusoo qarax siiyey waxaad yeelaysaan ilmaada rayaalo kamarada naga daaya acuudu billahi min shaki baa na geliseeno hadda anigu waaban marmarka qaarkood facebook waan iskaga sheekayn jirayo qofka oo hadda waxaa lahaa waar baktiga beeraha idinku dhacday iga baktiyo haye dhegta waxaan ahaynba waabaare waryaale ragow wasadinka nabaabiye wallahi anigu horta video callka waxaa dhib uma aqaanba in qofku dee adoo dharkaaga sita laakiin waxaan ku dhahaa dee kuwanaaba maryaa laga bixin doonaa waaba yahooge waraad baan dii salaamay ilaahayna asturo ilaahayna cafiyo ummadana ilaahay kala asturo kala hagaajiyaan leeyahay wada salaamay la kaftamayay wada salaamaya dumarkana waxaad leeyahay dumarow marka gurihiina dhixis joogtaan qolalkiina ku dhex jirtaan in maadaama ilaahay uu idin og yahay ilaahay wuxuu idinku baneeyay teen maar bana shaarica keenin oo rabo shaarica keenin inna lillahi wa inna ilayhi raaji'uun war waan salaamaya waayaaba anigu waan fajaa waxaynu midii u qaadanay sidii cadaanka ayaynu u qaadanay khalad baynu ka fahanay badownimada aynu ugu dad badow baynu nahay moogta ilaa naas fi akhirada